Dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay taariikh dheer oo xagga ganacsiga ku lahaayeen Geeska Afrika. Dhanka ganacsiga, Soomaalida waxay ka ciyaareen kaalin mug weyn oo ay ka qaateen ganacsiga qaaradda Afrika. Ganacsatada Soomaalida waxay xiriir ganacsi oo xoog leh la lahaayeen dhul ku yaala Bariga Afrika marka koonfur loo raaco. Tusaale ahaan, waxay saldhigyo ka samaysteen Sofala, oo hadda loo yaqaano Nova Sofala, oo ay taariikhyahanada qaarkood ay sheegeen in magaaladaas ay dhiseen ganacsato Soomaaliyeed, waxayna noqotay dekedda ugu muhiimsan boqortooyadii Monomotapa oo xilligaas ka jirtay aaggaas. Waxay ku taallaa dalka Mozambique. Waxaa asaasay magaaladaas ganacsatooda iyo badmareennada Soomaalida, iyagoo geyn jiray dharka suufka ka samaysan kuna soo bedelan jiray dahabkii aaggaas laga heli jiray. Soomaaliya waxa ay ahayd meel ay aad u isticmaali jireen waddo istiraatiiji ah ku taallay oo ay isticmaali jireen dalmareennada iyo ganacsatada waddamada isaga kala goosha. Waxaa ka mid ahaa dalmareennadii soo booqday Zheng He oo ka soo jeeday dalka Shiinaha, gobolka hadda loo yaqaano Yunnan. Safarkiisii ugu horreeyay, Zheng He waxa uu booqday magaalooyin badan oo xeebaha Soomaaliya oo ay ku jirtay Muqdisho, Baraawe iyo Kismaayo. Taariikhdu waxay xustaa markii uu Soomaaliya ka soo laabtay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu 1415kii kala laabtay waxaa ka mid ahaa gerigaas oo lagu xusay buugaag fara badan. Dadka Soomaalida ahi waxay tan iyo waqti hore ahaayeen kuwo ku safra badaha waaweyn ee caalamka, iyagoo u socdaalaya sababo kala duwan sida ganacsi, aqoon raadis, dalxiis iyo wax lamid ah. Boqortooyooyin badan iyo maamullo ka soo jiray biyayga Soomaaliya ayaa waxay dhiseen noocyo badan oo maraakiib, doonyo iyo qalab lagu safro xagga badda. Haddii aad rabtid inaan taxane ka dhigno barnaamijkan, like saar oo subscribe samey si ay maalin walba macluumaad dheeraad ah u soo gaaraan.